عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي نبا نبي قوي مدو يدي قبض بالليسيي waxaan ku aqal galana ma haysto Usmaan u tagay buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affan wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisa ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad aroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yiri uska kacay Usmaan baa ninku yareeray war kale xagad u socotaa wallahi de waxaan u socday war kale hayday war kale meesha ka socday buu yiri markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu yiri sallallahu alayhi wasallam yiri Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa nabi Maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal galin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nabigu ugu yidhi maxaad u kacday buu igu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo Allah ka cabsi lagu ma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi al-bay'i wash-shiraac علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياض السوق يقع نوح كوي بن كرام جرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبريه بقى سعودة كلها تشين هاو سعودة حاجة نسعنا والمؤمن وحال دون هنا نقطة مؤمن لا بد أن نودك كوتا على إلا أدوية هذا كويعو إلا آخرة هذا كويعو آخرة هذا هنا أدوية كوسجن أدوية وإنير وحن جوجنا إنير ولا ليال إن تاير إن جوجنو إلهي هكذا بغنو ودين هكذا قادنو ودين تنا هم برنو ودين تنا هكذا شقينو وزمن هذاك باللجوجرا زمن كيل لجوجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر أبو نبي قولي والزمن النبي محمد سي شيغي كون يا 400 سنه كهر نيجا دينتا مالنتا يرادا وان حجسن waxa uu ka dhignaan doona nin dhamac loo dhibay rasuulku yiri bulshada ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya mujtamac ومجتمع قفكو هدو إلى هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألون قبصده إلهي يقول نبي رأيه مويانه مركز زمن هذاك بانكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين علماء مروا بينه وقوب باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعية الله قبنا أيو ومد الله كل لو فكر أيو ورددالك الدين هذا ما أنت عالم كالسعوداء للرباع عامده إنه إنه علماء أنت قرب جوكسته أن ملك اللي أود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا ددالك الدين تا بس دقيستيال وناكسن ما نقولنا يا دقيستو وناكسن لوحة كو وناكسن دقيستو من الدين ويان لكن وحالة دو إنا نقطة أدقى لقى الرباع إن الدين تقيبت هذا وكقالته waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay u geliyay umadu ku anfacay